hits. barnaamijka dhalinyarada maanta. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. duur wanaagsan dhageystayaal waa maalin sabti ah 27 bisha Oktoobar sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jaafar Maxamed Kuukay. qodobada aanu idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan ku saabsan dib u soo laabashada dalxiiska magaalada Muqdisho. waxaa dhacda mararka qaar xitaa meel duura oo iska cidlaa oo geedo leh in loo dalxiisto iyadoo yani markaas lagu baraarugsan yahay dalxiiskii oo waayahan dambe oo aad magaalada xamar looga hadlayay. waxyaabaha kale oo aad u jeclaysto waxaa ka mid ah dadku inay fahmayaan wacyiga dalxiiska. tusaale marka dalxiiska kale la aadayo wiilashu inay surwaalo haafa inta qaataan iyo fanaanado yaryar ay dalxiisku aadaan halka waaga hore qofka markuu xeebta laga soo aadayo dabaal u soo socdo oo suud iyo taay soo qaadan jiray sidii inuu interview u socdo. heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida. militariga Israa'iil ayaa sheegay in nidaamkooda difaaca gantaalada uu ka hortagay 10 ka mid ah 30 gantaal oo ay sheegeen in xalay saqdi dhexe looga soo ganay dhinaca magaalada Gaza. gantaaladaasi ayay sheegeen in 2 ka mid ah ay ku dhaceen marinka Gaza halka madaafiicda kalena ay ku habsadeen meelo bannaan oo u dhow xadka Israa'iil. gantaaladan ayaa yimid saacado kadib markii ay saraakiisha caafimaadka Falastiin ay sheegeen in 5 Falastiiniyiin ah ay dhinteen 10 kalena ay dhaawacmeen ka gadaal barnaamijyo jimcihii shalay ka dhacay xadka Gaza iyo Israa'iil. dadkan ayaa waxaa dilay ciidamada Israa'iil ee jooga xadka sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. dalka Sri Lanka ayaa waxa uu wajahayaa khalalaase dhinaca dastuurka waddankaasi u yaala ah oo u dhaxeeya golayaasha dalkaasi. madaxweyne Maithripala Sirisena ayaa baarlamaanka maanta oo sabti ah shaqada ka joojiyay ilaa inta laga gaarayo 16 bisha November ee soo socota. jimcihii ayaa xilkii laga xayuubiyay ra'iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe iyo xukuumaddiisa. madaxweynaha ayaa Wickremesinghe ku bedelay madaxweynihii hore oo lagu tilmaamay nin aad u adag waa Mahinda Rajapakse. xubno ka tirsan xukuumaddii la casilay ayaa tallaabada uu madaxweynuhu jimcihii qaaday ku tilmaamay mid afgambiya. warkaasina dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayay Voice of America Washington. haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxaana magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. وعلى ونحن ملك سوتشوف كل سوى دوادة برنامج كما دشنا ليرد الفيديو طلبات كوخا ينكو أيضا سوى كذا ليرد يدلخيص كمقتشو معمله الصوت ضعف مجرد المقتشو ليرد وخا يسوى بلدقين دور ونحسن أو لخر يرد الخيص قبل كبنات بدنا وخا مجعبين أجاسم كواحد الخيص كما الجشجة تواصل الله مجعب عبد الفتاح محمود سياد أرسانة arrintan waxaad moodaa in maalmihii dabadda dhalinyaradu ay muujinayeen kharashada dharka hidaha ee dhaqanka soo bandhigida meelo lagu dalxiiso iyo in baraha bulshada si gaar ah ishu soo jiidatay. haddaba Muqdisho ma leedahay meelo lagu dalxiiso sidee bay u artaa dhalinyaradu xagee bay tagaan sidee ku soo bandhigaan. waxaan igala qaybgalaya Aamina Daahir Siyaad Aamina Sahra agaasimaha waaxda dalxiiska ee maalgashiga maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Maxamuud Siyaad Arisona iyo Sunni Carays Fayto oo kamid ah dhalinyarada aad ku isticmaala baraha bulshada gaar ahaan maalmihii dambe arrimaha dalxiiska aad ishu waayay. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka aan ku horeeyay Aamina Sahra si gaar ah
markii la yiraahdo muqdisho iyo doorka dhalinyarada dalxiiska maxaa ku soo baxay والله horta farxada ay noo tahay ugu horeyn dalxiis marka la sheegayana waxa ka horeysa horta in nabad la helo xilli waxay leedahay la xasuusto aada ugu faraxsanahay maalmahan dambana in aan arkayno meelo badan oo hore loo arki jirin oo muqdisho ka soo baxay lagu dalxiisto ayasime waaxda dalxiiska iyo maalgashiga madax ka tahay gobolka meelo badan baa indhaha dadka soo jiitay markii lagu magacaabayo waxa kuugu horeeya kuu sawirmay maxay ahayd aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir adiga iyo baada v o a waan idiin wada mahadcelinayaa runtii aniga magaalada wax badanan howlo kala duwan ka hayay oo aan kaga shaqaynayay aad baan xogayaal ugu ahaa magaalada iyo fursadaha ka jira markii xilka laga dhiibana dabcan dee aragtida iyo tusaalooyinka ugu horeeya ee darbadiiba maskaxdayna kusoo dhacay waxay ahaayeen inaan ka fikirna marka ugu horeeyo in aan samayno goobo cayiman oo laisla yaqaano oo dadkuna garanayaan oo ah goobo ku habboon ee dalxiiska ee caasimaddu ay leedahay daraasadii kuwaad aan sameynaynay waxaan kusoo wada bandhignay dhowr goobood oo hor leh oo dadku aysan ku baraarugsanayn haddana goobo dalxiis ahaa kuna habboonaa si markaa hawshaas quruxda badan ee aan samaynay dadku ay noola arkaana wixii ugu horreeyay dadka aan u samaynay waxay ahayd inaan annaga abaabulno socdaal dalxiiseed aan ku geynayna dadka goobahaas cusub oo dadku horey u arag tiina waxay keentay in dadka maanta iyaga ay iskood waadaan goobo badan oo kala duwan ayadoo awal la aadi jiray laba meel oo keliya oo liido iyo maxaa la yidhahdaa jaziira oo keliya dadku ay aadi jireen iyo goobaha kale gaarka loo leeyahay ganacsiga ama beerta nabadda ama pizza house iyo daarusalaam iyo goobo kaloo lamid oo saasoo kale loo sameeyo aadi jiray laakiin waxaan kusoo kordhinay goobo kaloo hor leh oo xeebo ah iyo goobo kaloo ku habboon dhinaca dalxiiska oo environmental dalxiiska qurux badana annagoo weliba intaa keliya aanan ku darayno dadka in aan wadne aan u diyaarinaynay waxyaabaha dalxiiska xiista gelin karaya hadday ahaan lahaayeen dhinacii raashinka dhaqanka hadday ahaan lahaayeen triibkii oo maxaa la yidhahdaa aan ugu dhex samaynaynay ciyaarihii dhaqanka madadaalooyin kala duwan oo suugaanta qayb ka ahayd gaar ahaan weliba suugaanta qaaciga loo yaqaana inta badan dadku inta dalxiiska lagu jira ay farxad badan ay ku dareemaan iyo waxyaabo kaloo aada u tira badan ayaan kaga shaqaynay marka runtiina meel fiican ayay gaartay oo maanta in heer qof walba ay dareensan yahay magaalada in dalxiis iyo process laga fikiro ayaan soo gaarsiinay sunna carays dalxiiska muqdisho in liida la tago jasiiro la aadaahay dadka muqdisho kuma cusbo marka maxaa soo cusboonaaday waxaa soo cusboonaaday horta qiyaaskii laga haystay iyo fikirkii laga haystay dalxiiska iyo dadku inay inta socdaan ay tagaan goobaha loo dalxiiso ayaa wax badan iska bedelay waaga hore qofka dalxiiska ama liido ama jasiiro aadayo dad qaasa oo cayiman oo magaalada yaqaana bisa aadi jiray hadda waxaa timid in diasporaha ama dadka dibadda dalka dib ugu soo noqday dadka xaafadaha ku keedsanaayo oo aan soo bixi jirin inay soo baxaan goobihii dalxiiska tagaan sawirra kusoo galaan ugu yaraanna muujiyaan quruxda iyo bilicda magaalada muqdisho sideeduba dalxiiskuna wuxuu astaan ama fariin u yahay nabadda meel dalxiis ka jiro waa meel xaqiiqi ama nabad ka jirto ama wax u dhigmo marka dalxiisku faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ugu horreeya in nabaddii la bandhigo dadku inay helaan meelo ay ku bixi karaan enerjiyadooda iyo waqtiyadooda nasiinada xilliyada ugu badan oo dalxiiso jimciya khamiista oo kale shaqooyinka ardadu waa ka fasax jaamacadaha iyo iskuulaadka dadka caadiga oo sida privateka u shaqeeyo maalmaha jimcadaha iyo jaanis ay helaan waxaa aada usii kordhaya marka wacyiga ah in dadku aysan guryaha joogin inay dalxiisaan ayagoo isticmaalaya dharkii dhaqanka iyo cunooyinka wadaniga ahaa iyo wax noocaas marka fursado hal abuur ganacsin wuu ka amaanayaa dadkiina waxay ku dhiirinayaan in ay gudbiyaan fariin nabadeed in magaalada muqdisho ay nabad tahay dadku ay dalxiisayaan imageka naga gudubsan adduunka oo aan muqdisho ay tahay magaalo qarax magaalo aan dadka isku socon magaalo qof walba gurigiis ku dhunto ay bedesho in magaaladii dad markii la arko kumanaan iyo boqolaal dhalinyara iyo hooyooyin dalxiisaya oo xeebihii ku jira oo goobihii dalxiisa soo sawirayo waxay gudbinaysaa imagekii nagala haystay mid ka duwan oo ah nabad iyo dalxiis aamina sahra dalxiis marka la yiraahdo lamaanayaal kuwa isjecel kuwa isdoondoonaya kuwa ku qurux badan oo si gaar ah isu soo jitaa gabar baa taa dabcan xagee u dalxiista horta aada u mahadsan tahay waxaa jiri jirtay markii hore in meelaha dadka caadiga ay u dalxiisaan sida leelihii jasiiro kale inay aadi jirnay laakiin hadda way ka duwan tahay ama dadku lamaanaha ahaadeen ama keli ha ahaadeen waxaa dhacda mararka qaar xitaa meel duura oo iska cidlaa oo geedo leh in loo dalxiisto iyadoo yacni markaas lagu baraarugsan yahay dalxiiskii oo waayahan dambe oo aada magaalada xamar looga hadlayay agaasimana shaqo fiican u qabtay sida hadda markii loo magacaabo wixii ka dambeeyeyba
kahor ma umaleynaya in ay jirto meel loo dalxiisa ama group dad israaca waxay la tahay in groupkiisa ay bilaabeen in basas dhaadheer dadka lagu qaado oo magaalada banaankeeda la geeyo oo tusaale ahaan meesha hadda keedsanayo oo kale in weligay aanoo tegin aan maalintii ugu horreeyday raacay asmaa iyo groupka uu la socday maxog ka soo cunay weligay ma arag inay baxdo dadka afkanka maqli jiray maxog wax la yiraahdo oo markii ugu horreysay ay inaan arko yani markaad dalxiisto waxaa kuu soo kordhaya way aragnimo waxaa soo arkaysaa yani meelaada weligaa soo arag waxaa kuu sigelaya hami ah in meelihii aad tagta maana meelo ka duwan inaa haddana tagto adoo markaas dalxiis yani ka dhiganayo lamaanayaasha keliyaha meelaha qurxoon inay aadaan maahan meelo waxaa jirta duur ah oo iyadana loo dalxiisi karo oo meel nasasho lagu soo nasta weelku raaco halkaa la tagto waa lahayd dalxiiska markii la bilaabo waa yeesha lamaanay raaraaca agaasime waxaad tiri laba meel baa jirta laakiin hadda way ka duwan tahay magaalada waxaas weydiin karnaa maxaa soo kordha xagee kale oo liido iyo aan jasiiro ahayn oo dadku aada aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir mar kale runtii siday ay ka dhawaajiyeen aamina iyo sunni labadaba annaga tarbiyadan samaynay aan soo korinay waxaa ka mid ahaa waxa ugu horreeyey inaan kaysanayo oo dadku dad badan aysan garanayn aan kusoo kordhinay maantana loo dalxiis tago runtii xeeb aad u qurux badan jimaladeena iyo weliba xeebaha dunida kuwooda ugu quruxda badan ka mid ah muuqaalkoodii oo kale leh ayaa ku taale laakiin dadku maysan garanayn waxay u yaqaaneen keliya meel hal isbitaal uu ku yaalo inteeda kalena duurista ayaa dadku isaga haysteen laakiin maanta goob loo dalxiis tago oo weliba ganacsi laga sameynayo oo laga dhisayo stadio iyo markaan tagnay kadib dhulkii xataa qaaliyoobay dadku u qaaliyoobay halkaana fursado fiican oo ganacsi iyo wax walba ka soo baxeen sidoo kale degmada xamar jajab oo dad badan aysan ka fakaraynin baa weligeed in xamar jajab xeeb lahayd ayaan geynay xeebta degmada xamar jajab oo ay dadku halkaa kusoo arkeen weliba maalinka tribka waxaa nagala qayb galay ama socdaalkaas dadka baayaha gaarka qaba oo dadin gabdho iyo wiilal indhala ayaan goobta geynay runtii dareen aad u qurux badan halkaa kusoo qaatay halka suugaanta ay ku qaadeen iyo de fanaaniinbaba kasoo baxay dadka laftooda baayaha gaarka qabayo farxaddii iyo markay nala qaateen waxyaabaha kale aan soo kordhin annaga waxay ahayd inaan laga fekerin keliya in laisku qufilin in marka qofka dalxiis aadayahay uu ka fekero ama meel xeeba ama meel doog laho qurxoon keliya inaan laga fekerin laakiin de laga fekero tallaabada aad qaadid aad meel aad isleedahay ka fekertid ugu yaraan haddaad meel barxad oo geeda la tagtid waa dalxiis haddaad meel doog laho qurux badan tagtid waa dalxiis haddaad any de fikirkii in la ballaariyo oo aanan lagu koobin keliya in la yidhaahdo wax walba ahi waxay ku xiran yihiin dalxiista hadaa aadid inaad biyo xeeba aragtid ama bad aragtid ama aad aragtid inaan lagu koobin ayada leh waa soo kordhida marka sidaas ayuu ku baahay oo dhinac kasta ay u gaaro sida amina sheegaysa haddeer goobo duur oo cidlaa inta la tago dadka ay kusoo hawo qaataan runtii maxaa la yidhahdaa goobo kaleeto aad u badanoo beerta nabadda iyo meelo kaloo iyadana la aadi aad dadku isaga aadi jireen dadku awal waxaa laga yaaba qofka inuu ta baxo daqaadirow oo laydo iska tago caadi laakiin markaa weydaysta aad tirahdid maxaa maanta laydo aad nin waa iska soo leersanayo ku dhaw laakiin maanta fikirku waa isbedelay wuxuu ku leeyahay haddaad weydaysid dalxiisaan laydo aaday already wuxuu ogaaday waxa uu sameynaya waxay yihiin wuu aqoonsaday wuu bartay marka laakiin marka hore waxba lagama dadka maysan ka garanaynin runtiina waxaan mahaddaas iskale maamulka gobolka banaadir oo hogaamiye gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho mudane injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yarisow oo runtii kaalin fiican iyo talooyinkiisa tusaalihiisa annaga lafteenna iyo aragtooyinkii uu ugu talagalay bulshada in si fiican dadkan loo gaarsiiyo annagana howlwadeenada ka shaqeynayaan ahayn oo shaqadaas si fiican ugu qabanay sunna carays isdhexgalka bulshada ayuu qayb ka yahay dalxiiska meelahan cusub ee lasoo bandhiga marka laga yimaado dalxiisku ma idiin sahlay in fahamka dhallinyarada isku soo dhawaanshaha iyo inaad doodaan oo dhallinyaradu maskaxdooda shiilaan waxyaabaha ugu weyn oo laga faa'iidaya ka mid ah dalxiiska in dhallinyaro is arkaan sababtoo ah magaalada markii la joogo dhallinyaradu nin walba shaqadiisa gaarka ah iyo waxbarashadiisa iyo goobtiisa gurigiisa uu ku mashquulsan yahay waxaa aada u yar isdhexgalka iyo isku imaantika iyo is aragga dhallinyarada laakiinse markii dalxiis la yidhaahdo tusaale liido markii la isku yimaado oo aad aragtid tobanaan saaxiibada ah oo mar hore kugu dambeystay ayagoo dalxiisayo adigana aad dalxiisaysid waxaa imaanaysa inaad wada fadhiisataan sheekaysataan xaalada dalka xalka dhallinyaradu ay imaan karto waxyaabaha oo dhallinyarada ay tahay in ay ka doodaan marka fursaday u tahay waxyaabaha kale oo aada u jeclaysta waxaa ka mid a dadku inay fahmayaan wacyiga dalxiiska tusaale marka dalxiiska kale la aadayo wiilashu inay surwaallo haafa inta qaataan iyo fanaanado yaryar ay dalxiiska u aadaan halka waaga hore qofka markuu xeebta laga soo aadayo dabaal usoo socdo oo suud iyo taay soo qadan jira sida inuu interview u socdo marka
wacyiga aad u sii kordhayo waxyaabaha kale oo aad u jeclaysto waxaa ka mid a hadda gobolka kale markaa geliso Soomaaliya ama Muqdisho waxa kugu horeeya ku soo baxay waa bush iyo nin qori wada la taagan iyo meel qarxis laakiin markii dalxiiska iyo waxaan ay bilaw waxa timid in dhalinyaradu sawir aad u qurux badan magaalada ka qaadan ay geliya social media iyo gobolkii oo hadda hadii aad Google garaysid Muqdisho oo isbedelka uu ka dhacay waxyaabaha kale oo cajiibka waxa kamid ah wadanka hadda noo dhow Kenya kale lacag badan ay ka sameeyaan dalxiiska oo ajaanib aad u farbadana timaado waxyaabaha ku taameynay kamid ah in wadanka loo dalxiis tago oo dadka adduunka surprise oo noqon la yaab Soomaaliya loo dalxiisay Muqdisho loo dalxiisaya goobo dalxiis inuu taso agjoolna magaalada weego hore ay jirtay xilliga dawladda dhexe haddana in ay soo kororto marka su'aashaada dhalinyaradu ma isku helaan dalxiiska waa meesha ugu muhiimsan oo dhalinyaradu inta isku yimaadaan kaga wada hadlaan aayahooda iyo doorka ay ku leeyihiin siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo dibdhiska dalka amina soo laabanaya dalxiiska waxa qayb weyn ka ah una kala duwan bariiska baasada dabcan kuma jirto meeshaas marka waxyaabaha ku soo jiitay kaysare ama khamar jajab ama meelihii la tagay marka muxoga laga yimaado maxay ahay digirta iyo bunka iyo daangada iyo shaah caanageele wax badan waxaa jira ma sha Allah oo loogu talagalay asal ahaan dalxiiska lagu cumrkii laadayo kala hore loo qaato in meesha inta tagayno kale ilbaxnimada aan gaarnay kamid tahay inta dalxiisna cunadan hore u qaadano wana aad lagu farxo runtii hal mid horta waa ka kornay soo ahaan dadka dibadaha jira dhalinyarada markay meelaha qurxoon iyo geedaha ilaamada isku sawiraan hadda intii waa yeelanay waxa inay ilaahay niyada lagu dhisanayo hadda dadka markay qaar meelaha qaar isku sawiraan quruxda markay arko qofkii tahriibka aaminsanayo kala muddo uga laabto oo aan waa jeclaa inaan barnaamijka magaalada Soomaaliya dhan uga baxo laakiin meelaha qaar marka aragto xogaa niyada ku dhismayo markaan igu soo dhacdo waxaan arkaa inaan igu soo dhacdaa waxaan sameeyaa inaan meelaha inta aad qurux badan isku soo sawiro si aan isku qanciyo iraado Soomaaliya meel ka qurux badan dunida ma jirto maanta fariinta dhankaaga ugu dambaysa aad dir lahayd marka laga hadlayo dhalinyarada iyo doorka dalxiiska gobolka Banaadir maxay wallahi horta hadda wajiib badan oo bilowdo ma sha Allah rajo fiican aan leenahay qurux badan wax walba hadii aan la sii wadin oo in sii soconin faa'iido ma keenan warajina dhalinyaradana waxaan dhigi lahaa inaad niyada ku dhisataan oo dalxiistaan guriga ka soo baxdaan oo waxyaabaha qaldaneed aaminsantiina isaga ma weelisan in magaalada banaankeeda aadaan agaasminaha uu nala joogaa oo si fiican xalena dalxiiska uu bilowdo laakiin maalgashiga hal dirdir gariyo si meel ka qurux badan meelaha hadda aadno in loo dhiso oo meel kale oo dalxiis aan ahayn oo loo dalxiis karno door oo kale in hadda la helo goobo dalxiis ay noqoto si dadka oo dhan ay ugu jeestaan in wadankooda uu yahay wadan qurux badan oo faa'iido leh agaasina khayraha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir oo ay soo weyn aska saaran waa meel kooban dabcan marka si dadku helaan dalxiis ka badan liido iyo duleeda magaalada Muqdisho ma jira qorshooyin ka duwan kaas oo loo dalxiisi karo dadku inay liido tagan kaliya maana badan ma sameynayso Cabdiqaadir aad ma santahay runtii fursad fiican ay horta magaalada Muqdisho haysataa dadkan fahamka ayaa mar walba horta sii kobcaya mar walba fahamkeena sii kobcana waxaan sii helaynaa fursado aad u weyn goobaha dagaalada ka soo baxay Muqdisho kale runtii dunida aad ayaa loo xiiseeyaa in loo dalxiisto goobahaas lagama xiiseeyo in xeebtooda la tago ama in la tago maxaa la yiraahdaa goob qurxoon ay leeyihiin laakiin waxaa laga xiiseeyaa goobaha taariikh ahaan aasaaska ama maxaa la yiraahdaa sooyaal taariikheedka ay soo mareen ama kii dagaalada ahaa ama kuwii hore taadadkii taariikhda ahaa ka dambeeyay ahaa ay aad loo xiiseeyaa Muqdisho marka waxay leedahay taalooyin weyn ay leedahay oo runtii dadkii xorriyadda u soo dagaalamay ay taalooyinkoodii kala duwanaa oo sayidka ku taalo Axmed Guriga ku yaalo iyo Xatuura ku yaalo daljirka Daasoon Xawataako taalooyinka tirada badan ayaa magaalada ku yaala kilometer 0 maxaa la yiraahdaa Doonbirka oo runtii ahaa goobtii xamar markii ay halkii idin laga soo gali jiray ayaa ku yaala goobahaas marka taariikhiga ah waa goobaha dadka dalxiiska inay u aadaan oo ay u tagaan ka sheekeeyaan oo loo dalxiiso oo laga sameyn karayo ay tahay kaliya marka xeebo oo kaliya ma ahan Muqdisho waxa yaala fursado tira badan baadar waxa kale oo ku sheegaya ma laga fikraynin waqti yar ka hor runtii dalxiiska in loo sameeyo maxay ahayd shirkado iyo in ganacsi noqdo ma laga fikray laakiin maanta waxaan diiwaan gelinay annaga ka gobol Banaadir ahaan shirkado aad u tira badan oo dhamaantood qaarkood ay soo wadaan ay rabaan inay xeebta geeyaan doomo waaweyn oo ilaa 50 qaad ilaa 30 qaad doonta dhexdeeda maqaayad laga dhex sameeyo maxaa la yiraahdaa xeebta inta dadka la dhex geeyo halka ay rabaan inay dadka ku soo casheeyaan ku soo dalxiisaan ka sameeyaan
qaarkood ay ka fikerayaan inay iyaga abuuraan goobo hor leh oo dalxiis annaga lafteennana sidaas ayaan rabnaa inaan usii kubcino hadda dhawaan waxaan rabnaa inaan iyadana samayno munaasabad weyn meesha la yidhaahdo baydhaxinay oo ku taalla jaziira ka soke runtii goobtii hore ee dalxiiska caasimadana ahayd oo ay ku yaalaan hoteeladii hore qadiimiga ahay ay ka sameeyeen dowladdii dhexe ee soomaaliya ay ku yaalaan environmentigii loogu talagalay dalxiiska ay leeyihiin geedihii waaweynaa ama timirta ahaa ama ay ku yaalaan mar dhowaan aan haddii la yidhahdo bandhiga ugu sameyn doonaa iyo goobo kale oo sunni dhankaaga maxaad is leedahay way tahay lagu soo kordhiyo waxyaabaha aan rabo in lagu soo kordhiyo waxaa ka mid ah tusaale hadda agaasimu wuxuu sheegay in magaaladu ay leedahay goobo taalooyin ah oo qadiima oo waddankan hore u caan ahaa sida axmed taxawtaako iyo axmed guri iyo sayidka goobahaas in loo raadiyo investment maalgelin oo tusaale maqaado yaryar oo dadka ay u dalxiis tagaan oo dadka inta fadhiisan yara caawa waxaa fadhiya xawtaako si dalxiisna u noqoto dadkaas haleeyada Soomaaliya taariikh u galana loo xasuusto mar walba waxa kale oo dhalinyarada raba inaan fariin ugu diro halkan in dhalinyarada magaalada Muqdisho joogto ay soo baxaan dalxiistaan muujiyaan quruxda iyo bilicda magaalada Muqdisho nabadda ka jirta magaalada adduunka waa la yaaban yahay magaalada Muqdisho in dad ay ku nool yihiin dadka qaar hadda tiraad muqdishada ku nool ay ku leeyihiin macquul ma muqdishada ku nool markii la Soomaaliya laakiin sidii dhalinyaradu inay soo baxaan waliba dadka jaamiciyiinta ah ee wax bartay ganacsatadana fursad fiican ay u tahay in hal abuurkaas ganacsi ay ka faa'iideystaan oo dalxiis iyo wax noocaas marka waa total wax aad u qiimo badan in dhalinyaradu iyo dadka Soomaaliyeed ay dalxiisaan nabadoodana ay kormariyaan dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka madasha dhalinyarada oo ay nagala qaybgalayeen agaasimaha waaxda dalxiiska maalgashi gobolka banaadir cabdifataax maxamuud siyaada riswaana aamina sahra iyo sunni carays intaanu kulmi doona barnaamijka lamida nabadgelyo barnaamijkii madasha dhalinyarada iyo cabdulqaadir maxamed cabdulle aanu intaa kaga gudubno markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaara nuur xasan nuur mahadsanid jacfar haddii aan ku horeyno horyaalka Premier League Ingiriiska ciyaaro xiiso leh ayaa maanta dhici doona waxaana ciyaarta ugu horeysa ay dhici doontaa galabta xilliga geeska Afrika kooxda kubadda cagta Wolverhampton waxay la dheeli doontaa Brighton and Hove Albion Fulham ayaa gurigeeda ku martigeli doonta kooxda Bournemouth Cardiff City waxay la ciyaari doontaa kooxda Liverpool oo kamid ah kooxaha hogaaminaya horyaalka Premier League Southampton waxa ay fooda diri doontaa Newcastle naadiga Watford ayaa waxa uu qaabilayaa kooxda Huddersfield halka caaw fiidkii ay Leicester garoonkeeda ku martigeli doonto kooxda kubadda cagta ee West Ham ciyaaraha kalena waxay dhici doonaan axadda birita ah Talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhici doona kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Juventus ayaa caaw fiidkii waxay marti u noqon doontaa naadiga Empoli Atalanta waxa ay martigeli doontaa Parma Fiorentina waxay u safraysaa kooxda kubadda cagta ee Torino horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga kooxda Atletico Madrid waxa ay caawa la dheeli doontaa Real Sociedad Leganes ayaa waxa ay u safraysaa kooxda Levante halka Celta Vigo ay is arki doonaan Eibar ciyaaraha ugu xiisaha badan toddobaadkan horyaalka Spain ee La Liga waxa ay habeen dambe dhex mari doontaa kooxaha Real Madrid iyo Barcelona kulanka lagu naaneeso El Clasico xiisaha kulanka El Clasico ee habeen dambe ayaa ah iyadoo ay markii ugu horeysay tan iyo 2007 uu midkoodna u ciyaari doonin labada kooxood ee Real iyo Barcelona Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi Ronaldo waxa uu ka tagay xagaagii aanu ka soo gudubnay kooxda Real isaga oo ku biiray kooxda Juventus laakiin Messi kama uusan tagin waxa uu ku maqan yahay dhaawac waxaana muddo 3 isbuuc ah uu Messi ku maqnaan doonaa dhaawaca ka soo gaaray gacanta ciyaartaasi lama oga cid badin doonta hase yeeshee waa tan loogu daawashada badan yahay sanadahan dambe ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub gaar ahaan kan Spain dhinaca horyaalka Jarmalka ee Bundesliga kooxda Mainz ayaa goordha waxay la ciyaari doontaa naadiga Bayern Munich guush ugu horeysay ay axad sabtida la soo dhaaftay heshatan iyo
saddex isbuuc markii ay badan weyday Hertha Berlin ayaa waxay marti u noqon doontaa kooxda Borussia Dortmund. naadiga Wolfsburgna waxay la ciyaari doontaa Fortuna Düsseldorf. Hannover ayaa gurigeeda ku martigeli doonta Augsburg halka Stuttgart ay la ciyaari doonto Hoffenheim. ugu dambeyntiina horyaalka Ligue 1 Faransiiska kooxda kubadda cagta ee Lyon waxa ay galabta la ciyaari doontaa naadiga Angers. Monaco ayaa la ciyaari doonta Dijon. Guingamp iyo Strasbourg ayaa arki doona Cannes iyo Lille waxa ay ku ciyaari doonaan garoonka Lille. caawana kooxda Montpellier waxay la dheeli doontaa Toulouse. dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa. Nur Bukhari aad buu mahadsan yahay. halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee VOA. markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaanaa Farxiyo Fiska iyo heestii Deelqaab. heestaasi ku luqayso fanaanada Farxiyo Fiska ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna idaacadeena duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiinayay Jacfar Kukay anigoo ah Nuur Xasan oo dhinaca soo saarista waxaa naga saaciday Bashiir Abikar tan iyo kulan dambe nabadgelyo.